السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي جمعة وناكسن مالكستو هاد نقدا ونايسان وبرنامج كيني لباد وبرنامج كي قلب نمو هادبا waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan intaynu kala maqnayn. taariikhdu waa 27 Febraayo sanadka 2026. barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa Mareykanka oo qaar ka mid ah shaqaalihii safaaradda iyo qoysaskooda ka raranaya magaalada Tel Aviv iyadoo laga baqayo in xiisaduhu ay saameyn ku yeeshaan. waxaa sidoo kale digniino loo diray dadka Mareykanka ee u safraya Israa'iil iyo qaybo ka mid ah gobolka Bariga Dhexe. warka cajiibka ah saakaan idin hayo markabka weyn ee Mareykanka ee yiraahdo USS Gerald Ford oo ah kan ugu weyn caalamka ee xambaara diyaaradaha ayaa la sheegay in uu ka baqayo inuu tago gobolka Bariga Dhexe. shaqaalihii markabkaasina waxay sheegeen in markabka ay cilad ku timid. haddaba halkuu joogaa hadda markabkaas, muxuuse ka baqayaa Mareykanku? tafaasiil ku saabsan sheekada ayana waan idiin soo gudbin doonaa. kooxaha muqaawamada Ciraaq ee gacansaarka la leh Iiraan oo sheegay inay markan heegan buuxa ku jiraan oo ay si toos ah uga qayb qaadan doonaan haddii la weeraro Iiraan. qaybta dambana waxaan idinkugu hayaa iyadoo maanta ay ahayd jimcihii labaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan in Masjidul Aqsa ay ku tukadeen 100,000 oo qof dad kor u dhaafaya xilli Israa'iil ay qorsheynaysay in 10,000 kaliya ay ku tukadaan. qodobadaas ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa. inta aanu ku jirno wixii cusub ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa, balse waxaa naga xasuusnay labaad maanta waa jimce. mar kale waxaan idin leeyahay jimca mubaarak. asxaabay, barnaamijka waxaa inoo soo socda qodobo aad u xiiso badan, balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa. Mareykanka ayaa qaar ka mid ah shaqaalihiisa iyo qoysaskoodaba ka qaadanaya safaaradda magaalada Tel Aviv iyadoo cabsida ay sii xoogaysanayso xilli waliba Iiraan iyo Mareykanka iyo Cumaanba ay ididiilo iyo rajo ka muujinayaan wadahadaladii dhawaan dhexmaray labada dhinac Mareykanka iyo Iiraan ee ka dhacay magaalada Geneva. iyadoo wadahadaladaas rajo laga muujinayo ayaa haddana Mareykanku waxay bilaabeen shaqaalahoodii inay ka qaataan halkaas Tel Aviv. haddaba marka waxaa la isweydiinayaa ma dagaalba mise wada hadal iyo nabad ayaa socda? waa lagu wareeray siyaasadda Donald Trump ee ku wajahan Iiraan. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas, jariirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa waxay sheegtay in ay ku sii badanayaan askarta Mareykanka ah si aan horey loo arag ay u tagayaan Israa'iil iyo nawaaxigeeda iyagoo u diyaar garoobaya dagaal. Washington dhanka kale waxay u ogolaatay muwaadiniinteeda inay isaga cararaan oo ay ka tagaan Tel Aviv. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan oo warbaahinta Israa'iil laga soo xiganayo maalmihii la soo dhaafay Mareykanku waxay aad u soo galayaan iyaga iyo diyaaradahooda dagaalka iyo qalabkooda militariba deegaanada Israa'iil si markaa ay ugu diyaar garoobaan dagaal. haddaba arrintan ay ku soo badanayaan ciidamada Mareykanka Israa'iil ayaa la sheegay inay la xiriirto xiisadda ka jirta Iiraan iyo Mareykanka. dhanka kale waxaa la sheegay in Mareykanka uu sameynayo in qaar ka mid ah shaqaalihiisa iyo qoysaskooda laga qaadayo loona ogolaanayo inay ka baxaan Tel Aviv. haddaba gelinkii dambe ee shalay war soo baxay waxa uu sheegayay 4 ka mid ah diyaaradaha waaweyn ee kuwa qaada shidaalka in markaa noocooduna yahay Pegasus kuwa la yiraahdo inay ku sugan yihiin airportka Ben Gurion. kuwa kale oo noocyada dagaalka ayagana la sheegay inay halkaa gaareen oo ay ku sugan yihiin ciidan fara badanna ay halkaa joogaan. marka Mareykanka kaligiis ma ah. maalin hore waxaa sheegnay ilaa 11 dowladood inay muwaadiniintooda
halkaa u diideen inay tagaan oo ay kala baxayaan. maraykankana hadda ayuu soo galay. waxaa leeyahay caa'ilaadkii iyo dadkii safaaradda ka shaqaynaya iyaguna waa laga qaadayaa Tel Aviv iyadoo cabsidu ay sii kordhayso. marka waxaa leeyahay maalmihii lasoo dhaafay joogitaan aan muddo la arkin ayay maraykanku joogaan Israa'iil. hadda waa ku soo qulqulayaan diyaarada hadhihin, askar hadhihin, kulligood meeshaas ayay hadda yimaadeen aan leeyahay oo ay isku diyaarinayaan. waay sheekada marka la yaab kale saakay warbaahinta haysataa waxay tahay markabkii weynaa ee adduunyada oo dhan loo sheegayay midka ugu weyn caalamka ee diyaaradaha qaada ayaa loo diray bariga dhexe. wuu socdaa, dhinacyada kuwa kala ka socdaa. hadduu meesha tago waa la kala baxayaa, wuxuu dhigo waa la arkayaa. markabkii iiraana waxay tiri gantaalahaanaan u hayaa ee ha soo socdo. aayatullaahigii ugu weynaa iiraan wuxuu yidhi biyaha cabsiinayna. markab caadiya maaha, waa dowlad dhanoo guuraysa. 90 diyaaradood, intaasoo gantaal nuclearu xataa ku shaqeeyaa, waa shaqaalaha la socda. waxa la socda waa yaabasa. baalkaas haddii la dejiyo kii ugu weynaa caalamkana uu ku hayay, maxaa yaala wax u haraa male. macallinkii waa baqay. markabkii markuu soo gaaday Mediterranean-ka waxaa lagu leexiyey dekad Gariiga ku taala. meeshaasuu dhowr maalmood joogay. haddana wuu soo dhaqaaqay. shalay ayuu wuxuu soo gaaray ilaa saaka aroortiyaa la leeyahay xeebaha Israa'iil, dekada Xayfa jooga. war markabkan meeshan muxuu ugu wareeganaa yidhaahdeen. dagaaluu u soo baxay, maa dagaalka aadu, macnaha bariga dhexe maa tago, meela iiraan joogto baa u dhowaado. muxuu Gariiga iyo Israa'iil iyo meelahan uga daba wareeganaa? barxadaa la iska rabaa, garoonka inuu soo galo waayo, meesha ciyaartu ka socoto ha yimaado. maxaa dhacaa layidhi nimankii marka social media inta lagu qabtay. maraykanka dee miidiyooda caadi maaha, waa fulayaalaa layidhi. markabka wuu cabsaday, markabkii wuu baqay ee dheheen. nimankii markabka marka waa isdifaacayaan soo maha, sheeko yaab leh isku difaaceen. markaase wuxuu yidhi markabku naga hadlaysay, cilladaa ku timid. oo cilladda maxay tahay? dadku waxay islaayeen gantaalada maa hallaabay, ma sidiisa kala cillad ku timid matoorka miyaa? markaasay waxay yidhaahdeen musqulaha markabka aan naga hadlaysanadheen. balaayeedii ku dhacday. maxaa musqula fulaynima meesha la fadhisaaneen. meeshii waxaa ka dhacay waa yaabaysaan. haddaba markaan idintuso wararkii ugu dambeeyey, telefishinka Aljazeera ayaa warbixin la yaab leh ka qoray goordhow. sheekadan wuxuu leeyahay waxaa qabsaday aaladda internetka la yidhaahdo X saacadihii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay sheeko la yaab leh oo ku saabsan markabka Maraykanka ee diyaaradaha xambaara, in markaa sababta uu dib u dhaca ugu yimid oo uu u tagi waayey meelaha dagaalka inay tahay cillad ku timid. cilladaasoo ah musqulaha markabka uu leeyahay. markabkan la yidhaahdo Gerald Ford, kaasoo la sheegay in tegistii uu tegi lahaa bariga dhexe badda khaliijka iyo baxrul carab oo u dhowaan lahaa markabka kale, inay ku timid cilladaasoo ah inay markaa musqulihii ka hadlaysan yihiin. musqulaa naga hadlaysanadheen. musqul waa la yaabayba dadki. oo maxay tahay markabka weyn musqulaa naga hadlaysan? maxay tahay mutago meesha dagaalka layska rabo, muxuu meelahan iskaga daba wareeganaya? marka maraykanka caqligiisu wuu qabaa. waa taa hore idinkugu sheegay. waa tii xalay barnaamijkaygii saakay aan kusoo qaatay. barnaamijkii saakay inaan kusoo qaatay waa weydeen, oo ah ciidanka iiraan inay yidhaahdeen hadduuna ogaan lahaa maraykanka awoodeena uu garan lahaa dagaal xataa kama hadlayna dheh. marka uusanna aqoonin. marka waa isbaranaynaa dheen, ha yimaado, waxa uu haysta halkan ha keeno. marka nimankii maraykanka Trump isagaa wax waabin jiray oo handadi jiray. meeshaan marka waxaa la yidhahdeeno handadaadkaa ma yeelolo, asagiyaa la handadaya. hadda markabkiisii wuu soo dhaqaaqi laayahay.
Gerald Ford midka la leeyahay maruu Greega ku hakado maruu badan meeshan war meeshan ma xagga la iska rabaay ma wad markaas ay wixii musqulaha naga halaysanay qosolkayga nabaad musquliya naga halaysanay markaas sawirro iyo nin askari oo musqul oo saas oo sameeynaya ay keeneen musqul maxaa ka galay dagaalka marka sheekadaas marka halkaas ay maraysaa qodobka kale ee barnaamijkeena galabnimo ee labaad maanta oo jimcahan idinku soo gudbinayna wuxuu yahay kooxda muqaawamada Ciraaq ee gacansaarka la leh Iran waa awlaadii Iran ayaa waxay yiraahdeen markan wacdana dhigi doonaa haddii Iran la weeraro waa awoodeen waa la arkayde nin walba markiisuu tuurara hanjabaadiisa markaasuu tuurara ayadiisu tuurara nin walba marka waxay yiraahdeen annaga dagaalkii hore waxay yiraahdeen 12 maalmood kama aan qayb gelinay macnaha dagaalka 12 maalmood annagu kama aanan qayb gelin laakiin kan diyaaraanay haddii Iran la weeraro Mareykanka Ciraaq jooga waa la qaynay Israa'iilna de nagta ka saarayna wixii aan gaarsiin karnaa gaarsiinin marka haloo diyaar garoobo istinfaar wax la yiraahdo heegan buuxaan ku jirnaa yiraahdeen marka ayaduna aan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray haddaba kooxda Xisbullahida Ciraaq ayaa waxay sheegeen inay heegan buuxa ku jiraan dagaalyahanadeeda iyagoo u diyaar garoobaya dagaal muddo dheer qaata oo la filayo inuu dhaco haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay Xisbullahida Ciraaq dagaalyahanadeeda waxay ugu baaqeen inay diyaar garowgii ugu dambeeyay galaan si ay ugu diyaar garoobaan dagaal muddo dheer ka dhici doona gobolka waxaana sheegeen in ay sii xoogaysanayaan hanjabaadaha Mareykanka oo ah inuu weerar military oo ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga uu qaadi doono bayaan rasmi ah oo ay soo saareen kooxdan xalay ayaa waxay ku sheegeen inay uga digeen Mareykanka haddii dagaalka uu bilaabo in uu khasaare la kulmi doono oo ay markaa khasaaro xoog leh Mareykanku ay ka soo gaari doonto dagaalkaas waxay yiraahdeen Mareykanku dagaalka hadda bilowdo cid kaaga futuxan male waxa dhaca waa la yaabaa dagaal muddo dheer aanu diyaar garoobaynay adiga haddaad week iyo maalmo rabtay inaad ku soo afjarto ma shaqaynayso waa muddo dheer dagaalka muddada dheer aan galaynay leeyahay marka nimankanna waa hanjabeen hore Xisbullah iyo u hanjabtay Lubnaan xoogtiga iska baday masaajidda jihaadka laga cilaamiyo hadiiba ninkan uu dagaalka ku qaado annagana kuwa badda jooga ku yaacayna u taagay marka hawshaas marka halkaas iyaduna maraysa dhammaan marka hanjabaadahan iyo waxa kan waxay imaanayaan xilli dhanka kale la leeyahay wada hadalada dhacaya oo socda wali waa lagama quusano raja la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Oman oo dhexdhexaadinta wada xataa maanta waxaan arkay Washington oo u duulay si arinta loo sii wada hadalka qaybta kale oo afaraad hadana isbuuca soo socda in la isugu iman doono meeshaas hawshaas wada hadalkuna way socotaa halkan hanjabaadna waa la isku baabiyay marka xaalku marka halkaas uu maraya wararkaas ayaa ugu waaweynaa heesadaha ka jira dhanka Iran iyo Mareykanka qadar xayeysiisa kadib asxaabay waxaan u gudbaynaa iyadoo maanta ay ahayd jimcihii labaad bisha barakaysan ee Ramadaan maxaa ka dhacay masjidka barakaysan wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa jimce markale jimca mubaarak qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu ku jirnaa haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa maanta waxay ahayd maalinkii ama jimcihii labaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan waa tii jimcihii hore aan ka hadalnay 10,000 aan ogolnahay Israa'iil ayadoo ku haysa ayay 80,000 xarootay jimcihii hore jimcahan waxay yiraahdeen si aysan taa u dhicin xalay ayay jidgooyooyin meel kasta dhigeen si ay dadka u xanibaan saake waxaa la arkay masaajidkii iska dhaafay barxadihii banaanka oo lagu tukanayo meeqa yiraahdeen 100,000 oo qof ha gashaaliin meel ka galeen ma yaqaanaan war dadkan xagee ka soo baxeen ma dhulkee ka soo baxeen xagee ka soo baxay adiga sheeg meel walbana jidgooyay dhigeen marka hadda waxa leeyahay marka dambe way yaaban yihiin
10,000 ogolnahay inay salaada jimcaha ku tukato say u lahaayeen 100,000 jimcihii horeba ay qarsaa 80,000 ahayd 20,000 hadda ku darsan dadkan maadiintooda laga hor istaagaa markaasay masaajidkii ku yaaceen dhalinyaraha dhihin odayha dhihin awalna dadka da' u kala qabanayeen waxay lahayn 50 sano wax ka weyn 55 sano wax ka weyn waxaas ma jiraan ardaa meeshan waa soo cibaadaysanaynaa marka meelay ka galeen ilaa hadda cid taqaan male mucjisaadkay ka mid tahay meesha ka jira askartii miyaan waxba u jeedin waxay waa xaroodeenba 10,000 loogu talagalay 100,000 gash waxaan caadi ahayn galay haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegay 100,000 oo qof inay ku tukatay masjidka Al Aqsa iyadoo ay jirto yiri waliba cadaadis fara badan oo ay gumaystuhu ku hayeen dadkaas oo ay diidanayeen inay galaan masaajidka haddaba masaajidka oo ahaa maanta jimcihii labaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa 100,000 oo qof masaajidka ay ku tukatay iyadoo Israa'iil dhan walba masaajidka ay xayiraad ka saartay si ay uga hortagto dadka tirada leeg inay masaajidka galaan haddaba Falastiiniyiinta ayaa meel walba isaga yimid oo masaajidka galay waxaana la sheegay in Israa'iil qorsheedu ahaa 10,000 oo qof inay ku tukato masaajidka sida warbixin ay hore u soo saareen hay'adaha ammaanka Israa'iil ay sheegeen waliba waxay soo kale hore u soo saareen dadka ka qayb galaya ama galaya masaajidka loo ogolaanayo ee ragga ah 55 sano inay da'doodu noqoto halka haweenkuna ay 50 sano noqoto laakiin wixii oo dhan waa la isku fuqsaday 100,000 xarootaali marka waxyaabaha la yaab kale ka mid tahay marka sheekada cajiibka ayaa iyaduna barnaamijka ugu dambeysay wixii warar soo kordhana asxaabay waan idin la socodsiin doonaa waxa soo kale aan xusuusinaynaa dadka qisooyinka jecel channelkeena kale qisooyinka nadaara laba inaad ka daawan doontaan qisada aanu idinkugu talagalnay toddobaadkan oo aad u xiiso badan like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka haddii aad sidoo kale nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-na follow garey si aad u hesho mar walba barnaamijyadeena inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo